leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekh maxamed waxaan ka weysaysanaa biyaha tubada ka socda mana tirino inta jeer aan dhaqno gacmaha iyo jirkuba ee la dhaqo sheekhow sidaas ma ku ansaxaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحن نبينا كسر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها إن حبنها مرمر دقي جري هل مر واحد صومالي وحيسي أو تقانه حكى له السجن إنه النبي صلى الله عليه وسلم حبين كست لبا غور دقي جرين way suganta inuu xubin kasta marka laga reebo madaxa saddex goor dhaqi jireen way suganta waajibku waxa weeyaan xubinka in biyaha la wada gaarsiiyo inta waajibka ah inta dhaqidiisu ay waajib ka tahay inay biyuhu wada gaaraan intaas laazim ah wixii inta ka siyaadsan waa sunno tawa qodobka labaad inta goor ee dhaqday inaad ogaato iyaduna laazimo weysadu kuma xidhna weysadu haddaad xataa tirada yaa dhaqday xubnaha garan weyda way asaxaysaa laakiin mid baad iska ilaalin una badan markii tuubooyinka laga weyssan iyo biyahan iska socda dadku u badan yihiin waxa weeyaan in aad weysada ku xadgudubto xadgudubkaasi wuxuu noqon karaa inaad tiradii ka badiso waa xadgudub saddex inaad ka badiso waa xadgudub inaad meel loogu talagelinba biyaha gaarsiisood xubankii meel aan mashruucba ahayn gaarsiiso waa xadgudub inaad biyaha qadarkii ay ahayd kugu filaa weyse qaadadka inaad ka badisood biyihii ku ciyaarto iyadana waa xadgudub inaha waad iska ilaalin waxay ku soo aroortay xadiidka cabdullaahi ibn mughafal axmed ibn maajah ibn xibbaan soo saaray wuxuu leeyahy rasuulkaan maqlay sal alla alay wasalam oo dhahaya yakuunu fii aakhiri zamaani qowmun yactaduuna fi adducaa'i waatuhuur aakhiru zamaanka waxaa imaan doona dad ku xadgudba baryada allabariga iyo dahaaro qaadashada qabayska iyo weyse qaadashada dad ku xadgudbaa imaan doono nabi sallallahu alayhi wasallam marka waxaa soo gelaya inaad biyihii ku xadgudubtood xaddii aad u baahnayd inaad ka siyaadiso xubinkii inaad ka siyaadiso shareecadu sohdimihii ay u samaysay dahaaro qaadashada haddaad gudbiso kaman aw kayfan waa xadgudubkaa ay shareecadu tilmaantay taa marka waad iska ilaalin si kale weysadu waa saxaysa wallahu a'lam